بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ولا ليال خطبة ومقليسين وحي أهد خطبة قيمة بدن جزاه الله خيرا وحي كساب سنايد رمضان تا دبيا قديدا طبنكي الدنبي كساب سنايد tobankii dambana waa ina hadheeyeen cimrigeenni waa cararayaa waa daqaa'iqdaa socota shalay waxaynu sugaynay ayaan dhoweyd bisha ramadaan inay loo soo gasho waana ku bushaaraysanaynay iminkana way jeesato way baxaysaa wax yar baa ka hadhay badankii waa tageen maanta waa 19 habeen baa ka hadhay ama 11 29 hadday ku dhammaato 10 baa ka hadhay oo 10kii dambe caawu bilaabmaya 30 hadday ku dhammaatana 11 baa ka hadhay oo 10kii dambe habeen dambu bilaabmaya 10ka dambena waa fadli badan yahay adilla badan baa ku soo aroortay allah wuxuu sheegay walayaalin 10 10 habeen buu ilaahay ku dhaartay 10ka habeen lagu dhaaranayo waxay culamo badan ku fasireen in loo jeedo 10ka habeen ee ramadaan ugu dambeeya العشر الأواخر 10 dambe waa 10 khayr badan yaday tahay bishoo dhan in la wada dadaalo ayaa si gaara in 10ka dambe loo dadaalana ay tahay habeenada tirooyinku kala dhiman tahayna in si gaara loo sii dadaalo ay tahay nabiguna sallallahu alayhi wasallam kaana idaa dakhala al-'ashr ahya laylah wa ayqadha ahlah wa shadda mi'zarah rasuulku sallallahu alayhi wasallam hadii 10ka dambe soo galaan habeenkiisa waa noolayn jiray wuxuu ku noolayn jiray cibaado iyo qiyaam iyo salaad iyo qiraa'atu qur'aan waayo cibaadadu waxay ka dhigan tahay kal xayaa nolol oo kale ay ka dhigan tahay cibaado la'aantuna waxay ka dhigan tahay kal mawt geeri oo kale ay ka dhigan tahay ahyaa laylah wa ayqadha ahlah ehelkiisana waa toosin jiray waa kicin jiray ka kaca wa shadda mi'zarah guntigiisana waa adkaysan jiray culamadu waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa dadaalka uu nebigu dadaalayaa laga tilmaamayaa inuu guntiga adkaysan jiray waayo caadadu waxay tahay qofku hadduu camal qabanaayo inuu ismajiiro is-adkeeyo oo maradu si ayna uga dhicin guntigana uu giijisto ayaa caadatan la yaqaanaa marka waxaa laga tilmaamayaa inuu dadaali jira laga tilmaamaya bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa washadda mi'zara xaasaskiisa inuu u tago inuu ka fogaan jiray ku mashquuli jiray un cibaado oo habeennada aanu xaasaskiisa u dhowaan jirin ayaa looga jeedaa bay culamada qaarna yidhahdeen 10ka dambe waxaa ku jira habeen la yidhahdo laylatulqadri waa habeen sharaf badan waa habeen fadli badan suurad dhan baa ilaahay ku soo dejiyey habeenka laylatulqadriga suuratulqadri baa la yidhaahdaa habeenka iyo fadligiisay ka warramaysa habeenkaasi waa habeenku ilaahay qur'aanka soo dejiyey oo sida cabdullaahi ibnu cabbaas uu sheegay qur'aanka ilaahay wuxuu ka soo dejiyey min allawxi almaxfuudi ila asamaa'i addunyaa jumlah isagoo jumlo ah ayaa lawxulmaxfuudka laga soo dejiyey oo jibriil loo soo dhiibay markaasuu samaa'u dunyo keenay qur'aankii oo jumlo ah habeenkaa gudihiisa inay dhacday inna anzalnaahu fii laylati alqadr jamaahiiru ahlicilmina saasay ku fasireen in jumlo loo soo dejiye kadibna laga soo dejiyey isagoo mufaraqa shay-an fa shay-an qadar iyo suurad iyo aayad iyo aayado looga soo dejiyey min asamaa'i addunya calaa qalbi rasuul lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam taasi diidi mayso inuu jibriil ilaahay ka maqlay diidi mayso oo laba shay oo iska hor imanaya ma aha inuu qur'aanka dhammaantii inuu jibriil ilaahay ka maqlay sida ahlu sunnati waljamaca ay qabaan iyo in
lawxulmaxfuudka laga soo dejiye labadu waa iswaafaqayaan, labaduba waa xaq, midna baatil maaha, midna ka kala diidi maayo, iskamana hor imanayaan. muraadka looga jeeda innaa anzalnaahu fii leylati alqadrina waxaa laga tilmaamaya isagoo jumla ay la soo dejiye. bacdu ahlicilmi waxay ku fasireen innaa anzalnaahu fii leylati alqadri ay ibtada'na tanziilahu, soo dejinta qur'aanka la soo dejinayo bilownay habeen leylatulqadri ah. laakiin labada weji waxa qawisan ka hore. habeenkaa leylatulqadriga ilaahay wuxuu inoogu sheegay khayrun min alfi shahr, waxay ka khayr badan tahay 1,000 bilood bay ka khayr badan tahay. leylatulqadrigu ma aha siday dadka qaarkood moodaan ruux maryo cadcad sita, suulkiisu aanu laf lahayn, meelaha wareegaya, qofka ka soo horbaxayo uu qabsanayo iyo wax la mid ah, ama kudaafadaha iyo meelaha maraya. waxaasi waxa weeye waa khuraafaad, wax jira maaha. leylatulqadriga waxaa loo jeedaa habeenkaas ayaa camalka iyo cibaadada la sameeyee khayrka ah ayaa waxay ka khayr badan tahay 1,000 bilood camalka la samaynaya. camalka haddaad 1,000 bilood wadi lahayd oo aan leylatulqadri ku jirin, habeen iyo maalin aad wadi lahayd, aanad kala goyn lahayn 1,000 bilood, camalkaasuu ku taagnaan lahayd. waxaa ka khayr badan habeenkaa keli ah camalka aad samaysa. oo haddaad habeenkaa min awalihi ilaa aakhirihi, bilowgiisa laga bilaabo dhammaadkiisa laga gaadhaayo, cibaado ku mashquulsan tahay, nafsa haadihi alcibaada haddaad la iman lahayd 1,000 bilood oo aan kala goyn lahayn, oo hurdo lahayn, oo shaqo kale lahayn, oo wax kale lahayn, ee aad sidaa u wadi lahayd, habeenkaa qura inaad samaysaa ka khayr badan. waa fursa cadiima. 1,000 biloodaad bay u badan tahay. ummatu muxamed cimrigeedu waa yar yahay, waa cimri gaaban tahay. ummadii hore qaar badan baa cimrigoodu dheeraa. 1,000 sanay jiri jireen, 100 sanay jiri jireen, 1,000 sano iyo dheeraad bay jiri jireen, oo markaa shakhsigu noolaan jiray. nebi nuux waa garanaysaan, falabitha fiihim 1,000 sanatin ilaa 50 caama. qowmkiisa wuxuu ku dhex sugnaa oo nebi u yeedhaayo wax u sheegaya ahaa 950 sano. waa 9 qarni iyo badh. waxaad garanaysaa cumrigii ummadii hore inuu dheeraa. waxaa jira wakhti bicsada ka horraysay oo nuux markaa noolaa, markaa lama sheegin. intii ka dambaysay markii dambe markii qowmkiisa la halaagay uu sii noolaa, iyo intii ka horraysay ee uu noolaa, labada midna laynooma sheegin. marka cimrigii ummadii hore maadaama uu dheeraa, ummatu muxammadna cimrigeedu uu gaaban yahay, ou nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam acmaaru ummatii maa bayna 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuusu dalik. cimriyada ummaddaydu waa inta 60 iyo 70 u dhaxaysa. waxaa loo jeedaa sida haalibka ah, badanaa 60 iyo 70 inta u dhaxaysa ma dhaafto. qaar ka hormaraa waa jiraan oo iyagu aan gaadhinba. qaar baa saqiira, qaar baa sabinnimo ku dhinta, qaar baa uurka gudihiisa ku dhinta. noloshii waa la geliyey, waa noolaaday, uurkaabuu ku dhintay, cimrigiisa inta ahaa. qaar baa markay dhashaan dhinta, qaar baa iyagaan qaan gaadhin dhinta, qaar baa dhallinyaronimo ku dhinta. dad doora oo horteed dhintaa waa jiraan, qaar ka dambeeyaana waa jiraan oo 70 ka dhaafo 80 ama 90 ama 100 ama 100 iyo dheeraadba gaadha. waasay yaryihin. wa aqalluhum man yajuusu dalik. waxa yar inta ka tallowda oo ka gudubta 70-ka, waa qaliil. maadaama cimrigii sidaa u yar yahay ummatu muxamed aynay tahay khayru lumam. kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar. allah wuxuu sheegay ummadda ugu khayrka badan inay tahay ummatu muxamed. nebiguna wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam ummadda ugu khayrka badan inay tahay. antum tuwaffuuna 70 ummatan antum khayruha wa akramuha cala allah. xadiiskii imaam axmed waghayruhu soo wariyey min xadiisi mucaawiyata bni xaydata alqushayri, waxa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxaad dhammaystiraysaan 70 ummadood oo tii 70aad aad tihiin. antum khayruha wa akramuha cala allah. ilaahay agtiisa idinka ugu khayr badan, uguna sharaf badan. haddaba marka cimrigeedii maadaama uu gaaban yahay, ummatu muxamed waxaa laga cawilay in la siiyey wakhtiyo khayr badan oo ay ku gaadhi karaan ummadii hore amaba ku dhaafi karaan. wakhtiyadaa khayrka badan ee laynagu cawilay waxa ugu mudan habeenka leylatulqadriga. waa habeenaan habeennada ku jirin. wakhtigiisu waa kooban yahoo tirada saacadaha iyo daqaa'iqda wuxuu la mid yahay habeennada kale. xagga fadliga iyo ajarkana lama mid aha. camalka la sameeyaa waa labanlaaban yahay.
waa kun jeer laaban yahay yacni ilaahay baa intuu doono laban laabaya khayrun min 1000 shahr kun bilood waa imisa waa 380 sano kunka u qaybi 12 u qaybi sanadkii waliba 12 bilood buu ka koobay 12 marka kun loo qaybiyo waxa soo baxaya 380 sano iyo 4 bilood ma idinku jira wax 380 sano gaadha waa midh waxa laga yaabaa in waxa weeye shanta farood ayna ka badnayn waxa markaa masjidka dhan jooga wax 380 gaadhay badankeenuna waxa laga yaabaa inaynaan gaadhin war habeenkii hadduu ina soo hadheey fursadda waa in laga faa'iidaystaa hadday tahay qiyaam salaad loo kaco hadday tahay qiraa'o qur'aanka la akhriyo qofba intuu ka yaqaano ha odhan anigu qur'aan badan ma aqaan intaad taqaan baad ku celcelin kartaa haddaad jisca ma taqaano jisca maad ku celcelin kartaa haddaad faatixad iyo dhowr suuradood kale taqaano intaasaad ku celcelin kartaa oo aad dad kale ku gaadhi kartaa ama ku dhaafi kartaa hadday tahay dikriga oo kale waa in lagu nooleeyaa ilaahay la xusaayo oo la wardinayo ducada dikriga qur'aan akhriska salaatu kashada hurda waxba ku gelin mayso bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen axyaa laylahu waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inaannu habeennadan seexan jirin badanka culammadu waxay qabaan haalibka habeenkii buu noolayn jiray oo cibaadaysan jiray laakiin wax yar indhaha waa isyaro gelin jiray in badanoo culammada ka mid asaa yidhi laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen maya axyaa laylahu darafkani waa daraf mansuub ah darafku markuu mansuub yahay iyo marka xaraf lagu jaro sida fii oo kale iyo ba iyo wax la mida waa kala duwan yahay markan kale wuxuu noqonayaa ee la jaray ee xaraf lagu hoos dhigay wax ka mida ayuu markaa ku guda sugan yahay laakiin haddii la nasbiyo waxaa laga tilmaamaya istiqraaq alleyl kullah habeenkoo dhan inuu wada noolayn jiray buu xadiisku daahir ku yahay bay yidhahdeen 10kaa habeen nebigu sala allahu alayh wasallam ma seexan jirine cibaadunbuu u dadaali jiro oo la iman jiroo ku dadaali jiray fursadda waa in laga faa'iidaystaa dib inaynoo soo mari doonto ma ogin nebigu wuxuu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam salli salaata muwaddic tuko mid adduunyada sagootiyayoo dhimanaya salaaddiisoo kale tuko bimacnaa haddii lagu odhan lahaa salaaddaad tukanaysaa waa tii kuugu dambaysay mid ka dambaysaad tukanaysaa ma jirto saad u wanaajin lahayd saad u geli lahayd saad ugu dadaali lahayd waa aakhiru salaa aad tukanayso tani sidaa uu nebiguba odhan jiray calayhi salaatu wasalaam salli salaata muwaddic habeennadan 10ka dambe iyo habeenka laylatulqadriga ah waa in loo dadaalaa yacni waxa weeye dadaal markaa mid waxa weeye muwaddica oo ka'annahu in loo sheegay inay tahay ramadaantii ugu dambaysay ee uu noolaanayo ila kama warqabtid inay noqon doontee markaa saas aawadeed wakhti soo socda oo aanaad markaa ogayn inaad gaadhi doonto lagu ballanqaadin garantiin ma haysatidii ha ku xisaabtamin hays odhanin waa da'yartay adigu dhallinyaraad tahay sannadaha dambaad dadaali doontaa waxan iyo waxan baad samayn doontaa markaad da'daa gaadhaad cibaadadaa la iman doontaa sidaas hays odhanin imise kaa dhallin yar ayaa dhintay imise sibyaanaa sakhiiray imise kula da ama kaa xoog badan ayaa dhintay gooray markaa naftu kula gaadhi doonta ma ogin fursadda la joogo waa in laga faa'iidaystaa qur'aankana waa in aad loo akhriyaa waa fursad qaaliya weeyi towbadda iyo istikfaarka waa in lagu dadaalaa man xurima khayrahaa faqad xurim baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ka khayrkeeda laga qadiyo kaa khayr waa laga qadiyo waa laga xirmaani allahuma laa taxrimna khayraha allahuma laa taxrimna khayraha allahuma laa taxrimna khayraha allahuma اغfir lana waliwaalidina walilmu'miniina waalmu'minaat allahuma اغfir lana waliwaalidina walilmu'miniina waalmu'minaat allahuma actiq riqaabana min annaar allahuma actiq riqaabana min annaar allahuma actiq riqaabana min annaar allahuma ina nas'aluka aljannata wma qaraba ilayha min qawli wacamal wanacuudu bika min annaari wma qaraba ilayha min qawli wacamal allahuma axsin caaqibatna fi lumuuri kulliha ya da aljalaali waalikraam ya allah allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cana allahuma اغfir lana allahuma arxamna allahuma arxamna allahuma arxamna allahuma axfadna
allahuma acsimna min alfitani ma dahara minha wma baطn allahuma ina nas'aluka xusna alkhatimة allahuma ina nas'aluka xusna alkhatimة allahuma ashfi marضى almuslimiina wcaafi mubtalaahum allahuma ashfi marضى almuslimiina wcaafi mubtalaahum allahuma acinna wla tucin calayna allahuma acinna wla tucin calayna ya da aljalaali wاlإkram ya allah allahuma amin wslى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed